kadib wada hadallo muddo dheer socday oo wada qaateen madaxda safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay dalka Koonfur Afrika iyo hay'adda lagu magacaabo Christina Revel Hall Children Home oo ayadu gacanta ku haysa 5 caruur ah oo ay ka qaateen hooyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Cape Town ee waddanka South Africa ayaa waxaa la isla gartay ugu dambeyntii in dib loogu celiyo caruurtaasi hooyadooda. hay'adani ayaa caruurta hooyadooda ka qaadatay 27 bishii July ee sanadkiina dhaafay 2012 kadib markii lagu eedeeyay in ay awoodi weysay daryeelka caruurteeda isla markaana aanan haysan nafaqo ku filan iyo waliba sidoo kale ay dayacday oo ay macquul tahay in dhibaatooyin ay gaaraan xilliyada ay ka maqan tahay guriga sida ay hay'addu ku dooday. kadib dadaalo dheer oo si wada jir ay u galeen qaybaha bulshada iyo ururada Soomaalida ayaa suuragal noqon weysay in hay'adani laga soo celiyo caruurta ay ka qaateen hooyada Soomaaliyeed ee dhashay. waxaase nasiib wanaag markii ay dalkan ay soo gaartay safaaradda Soomaaliya ay la wareegtay arintaasi iyadoo ugu dambeynna shalay lagu wareejiyay caruurtaasi hooyadooda. qonsulka safaaradda Soomaaliya oo fadhiya dalkan Koonfur Afrika Maxamed Cali Miri Nabadoonka oo markii lagu wareejiyay caruurtani la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ugu warbixiyay sida ay u soo gashay in caruurtani ay dib u soo celiyaan muddo sanad ah kadib. bismillaahir rahmaanir rahiim. ciyaalkan tiradu waa 5 waxay ka maqlaayeen hooyadii aabihii dhalay muddo 1 sano. sanadkaas waxaa jira dadaalo badan oo loo galay si loo soo celin lahaa oo ay galeen community-ga Soomaaliyeed ee South Africa qaasatan gobolka Western Cape magaalada Cape Town jaaliyado kale oo ururo kale oo Islaami ah iyo family-ka. nasiib darro waxaa dhici weyday in ay ku guuleystaan in lagu qanciyo hay'adaha caruurta badbaadiya in caruurta la soo celiyo. laakiin markii safaaradda Soomaaliya ay furantay waxay ku guuleysatay inay hay'adahaas la dhil garayso ay toos ula xiriirto kuna qanciso in muwaadiniinta Soomaaliyeed lagu soo celiyo waalidiintii dhashay. arintaas oo muddo soo socotay maanta waxaa loo hirgashay in 5 caruurta dib loo soo celiyo haddana ay ku jiraan gacanta safaaradda Soomaaliyeed ayadoo ay nawheliyaan waalidiintii iyo family-kii caruurtaas. sidoo kale ganacsade Cabdicasiis Macalin Ibrahim iyo Sheekh Cali Dheere oo ayaguna kamid ah ganacsatadii garabka weyn ka geystay howshan ayaa u mahadceliyay safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Koonfur Afrika waxayna sheegeen in ay la'aantood suuragal ahaan lahayn in dib loo soo celiyo caruurtaasi. ilaaha mahad iskale bacdigeedna ma taqaanaa waxaan u mahadcelinaynaa safaaradda Soomaaliya ee dalka kan South Africa oo muddo badan ka soo shaqeysay in ilmahan gacantii waalidiintooda ka baxay dib ay ugu soo celiso. annaga ka family ahaan waxaan ma taqaanaa maxamed aad iyo aad ugu faraxsanahay. waxaana ma taqaanaa ka shacab ahaan iyadana aan dareenay oo maanta ku faraxsanahay in dawladnimadu ay muhiim noo tahay. mahad Allah iskale bacdallaahina waxaa iskale safaaradda Soomaaliya oo ilaahay mahadiis gacantooda ay ku suurta gashay dadaal badan oo ka hor la sameeyay sida uu sheegay qonsulka oo ururo badan oo Soomaali ah iyo hay'adaha Islaamka ay ku guuleysan waayeen laakiin ilaahay mahadiis ay noqotay iyaga in ay ku guuleystaan in ay caruurtaan soo badbaadiyaan. alxamdulillah dareenkayna waxaa waaye wuxuu ka qasan yahay aad iyo aad wax la soo koobi kara maaha wax la qiimin karana maaha. hooyada dhashay caruurtani oo iyadana lagu magacaabo Saciido Sheekh Saciid oo muddo 1 sano ah aanan indhaha saarin 5 caruur ah oo ay dhashay oo kan ugu yari uu ku jiray umul xilliga hay'adani ay ka qaadanaysay isla markaana walwalka ugu badan ka saarnaa caruurteeda halka ay ku dambeyn doonaan ayaa safaaradda uga mahadcelisay ayadoo farxad weyn ay ka muuqato. waxaan arkaa arkada ciyaalkay ay la farxad aad u weyn oo maanta halka ku soo koobi karin iga markanaayeen 11 bilood iyo 18 beri in ka bacdi xilligaas dhibaatayaal badan waa wax yar waa la kulmay taxaama laakiin maanta waxaan u arkaa nolosheeda mid aad aan ugu qanacsanahay. Abdullahi Maxamuud Amiin Abdullahi Qorshe telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Cape Town waddanka South Africa.